networking ka Soomaaliya marka la joogo individual level iyo organizational level ba aad u muhiim u yahay Soomaaliya khaasatan marka la joogo si kasta wax u baro aqoonta doonto lahaw haddana waxa u baahan tahay in aad xiriir aad la leedahay oo aad taqaanid wax badan la sheegaa Sooma your network is your net worth Allah Sooma waxa ogaanaysaan ma jiro qof shakhsi ah oo careerkiisa ama aqoontiisa ama fursadaha asiga uu rabo sare u qaadi kara ama wuxuu rabo samaysan karo laazim dad ayuu baahanyaa dadka u baahanyaana waa right people dad wax ku soo kordhin kara waay si lamida ganacsigana ma jiro ganacsi kaligiis iswadi kara oo wuxuu rabo samayn kara wuxuu u baahan yahay ganacsi kale oo collaboration la sameeyo oo wax wadaagaan oo fursado isdhaafsadaan marka waa isku tag عقلي iyo awoodeed iyo saaxiibtinimo hana qaada taasoo dhasha aakhirka guul iyo wada shaqeyn waxaan rabaa marka qaybtan academic iyo industry-ga waxaan ka taabto dadka introduction ka sameynaya waa maqlay ilaa hadda wax jaamacad ka socdo waxaan u maleynayaa waa iska koobnaayeen marka maanta jaamacadda Hormuud iyo aniga fursad ay tahay intaan oo shirkadood aan maqlay oo dhan waxaan rabaa caawa xiriirina ay la sameeyo diilayra waxaan soo qaatay oo jeebkii igu jira business maxaa la yiraahdaa cardskaygi مالك invitation كان هلي automatically aniga oo aan maqlay B2B ayaa dhacay networking markaas ayaa waxaan shiday I turn on my mood of networking hadda aniga networking aan geesaa fiirinay Dr. Awal hore isku dhaqaana agteeda fadhiye marka waxa way hadda idin soo socda adinkana waa idin baro doona insha Allah waxaan rabaa wax yar inaan ka taabto industry-ga iyo academic gaaba u dhaxeeya mararka qaarkood waxaa la sheegaa jaamacadaha haddii aan xanteena ma moogin badanaa waxaa la yiraahdaa jaamacadaha waa more on theory practical ma sameeyaan ardada ay soo saaraan xoogaa skill gaaba mararka qaarkood dhici kara annagana eed waa iska wareejinayo jaamacado dal soo kabanayo ka soo baxaya oo resource-kooda iska yar yahay ayaa dhahnaa si lamid ah annagana waxaan dhaliilnaa industry waxaan ku dhaliilnaa in aanay research sameynin oo go'aamada qaarkood si laablakac iskaga qaataan waxa lacaga research-ka aanay gelin marka labadaas marka aad fiirisid labada doodba waxba ka jira laakiin waxa isleeyahay waxa lagu xalin karaa caawa kala lagu xalin karaa ka warram hadii caawa aan wada hadalno oo anaga iyo industry-ga intaan wada wadaagno aan jaamacadihii iyo waxaan idin qaban karna aan ka hadalno adinkana waxa aad nooga baahantiin aan ka hadalno waxaan isleeyahay arintaas waa isku soo dhawaanaysaa shirkadaha Soomaalida iyo guud ahaan caalamka caqabada ayaa soo wajaha dhinaca kasta markuu ka soo wajahaya suuqa ka soo wajahaya isbedelka adduunka waxa ka socda ayuu culays uga imaanaya farqiga annaga shirkadaheena iyo shirkadaha caalamka u dhaxeeya waxa waaye shirkadaha Soomaalida markii iyaga dib u soo wajaho waxa laga yaabaa in ay go'aanka ninka odaga ah ay ugu sareeyo iska qaato ama afarta oday ugu sareysa laakiin caalamka bilcagsi waaye dadka ehelka u ah ayaa la weydiiyay oo dhibkaana jiray research aan ka sameeyno ka bacdina go'aamadii ka soo baxo ayaa waxa lagu qaataa decision waxaan rabnaa inaan isla fahanno ma jirto shirkad ganacsi oo kobac sameyn karto ilaa research ay ka sameyso I challenge you qofkii ka soo horjeeda gacanta u taagi kara mana jiro research la sameyn karo ama macno leh oo la qaban karo haddii aan la helin problem iyo xog taasoo inta badan ay hayaan shirkado marka waa isku duubni laba shaqo oo ka dhaxaysa industry-ga iyo jaamacadaha isku soo dhawaasho iyo wada shaqeyn ma ka dhaxaysa jaamacadaha industry-ga yes laakiin sida la rabo ma ahan wax formal ah oo isku xiran oo wada shaqeyn toos ah oo dhabaana ma dhacdo waxa laga yaabaa in barnaamijyo sanadle ah iska kaashadaan oo kale mararka qaarkood in sponsorship jaamacadu ay ka doontaan shirkadaha qaar ay xoogaa yar ka qaataan ayaguna waxa yar mataqaanaa boorka loo soo dhajiyo heblaaya sponsor gareysa la dhaho laakiin waxa isleeyahay caqabada intaas ka waaweyn ayaan xalin karnaa haddii gacmaha isqabsano shirkadaha sidaan ogsoonahay waxa ay sameeyaan waxay leeyihiin CSR corporate social responsibility lacag fara badan ay ku bixiyaan lacagaha noocaas oo lagu bixinayo marka haddii danta guud aan uga shaqeeyno oo aan bulshada wax ugu qabanno waxaan isleeyahay wax badan ay gaari kartaa sidoo noqon karaa marka waxaan maqlaayay akhyaar isbitaalka ka socota oo shirkado fara badan oo meeshan ku xusnaa bal ka waran caawa haddii fursadan iyada ah aniga iyo rag isbitaalada ka socda isbarano xiriirkeena oo meeshaas ka hana qaado kabacdina aan sameeyno joint research oo aan uga hadlayno public health-ga bulshadeena dhibka waxa ku haya waa marka aan danta guud ka fiirino kabacdina aan arintaas iyada falaqeyno ummadeena aan uga faa'iideen mid qaaska haddii aan ka fiirino suuqa oo public health center-ka competition adaga ka jira Soomaa maalmo isbitaal cusub la furaa isbitaalku u baahan inuu suuq xog ka ogaado ama warbixino hoosaada la wadaago xataa center research-ka jaamacaddu la soo xiriiri karaa
warbixina loo diyaarinaya competitive analysis loo sameynaya ka bacdi waa la wadaagaynaa marka go'aamada noocaas oo la qaadanayo oo research u baahan ayaan idinka caawin karnaa adinkana waxaa naga caawin kartiin in ardayda idin soo dirno internship aan noo siisaan waxyaabo fara badan aan wadaagno kama hadlayo kaliya jaamacadayda Hormuud laakiin waxaa ula jeedaa si guud maadaama akademiya aan ku hadlayo waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan u mahadcelino aan rabaa teamka Arkaan oo runtii forward thinking ah habeen walba wax cusub oo eegyaabay sameeyaan waa madaaliyaal xal barnaamij ay lahaayeen waxa islaaniyo nimanka barnaamijka saaki iyo shalay iyo ku jira ilaa xalay sidee caaw u qaban doonaan marka ustaadka noo sheegay inay sanadkii 2020 ay qabtaan waa hambaleenaya insha Allah taala waxa rajeenayaa in salaantii hadaya islaanteen iyo isbarashadeeni in ay ka dhalato isbarasho taasoo mira dhasha oo sanad kadib ama sanad ka bacda aan iskugu imaano oo aan dhahno barnaamijkan isaga ah collaboration-ka ay guuleystay wuxuu ka soo bilaawday habeenkii Arkaan ma xasuustaa oo maalin hebel meesha iskugu imaanayay halkaas ayaan rabaa inaan ku soo koobo aad iyo aad u mahadsantihiin habeen wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh